dadka maamulka haya siyaasiyiinta ah oday dhaqameedada ah a'immada masaajidda ah dadka xukun u haya waxaan leenahay nebi maxamed wuxuu yidhi xadiiska saxiixu muslim ku yaalla allaahuma man waliya min amri ummatii shay-an fashaqa calayhim fashquq calayh ilaahayow ummaddayda ninka wax maamula u qabta ee ku adkeeya ilaahu isagana ku adkee buu nebigu yidhi ninkii u dabcana waman waliya min amri ummatii shay-an farafaqa bihim farfuq bihi ilaahu kii u dhimriyana u dhimri adigu dooro in habaarka nebi maxamed kugu dhaco iyo in ducada nebi maxamed kugu dhacdo adaa doorashada leh nebi maxamed waanu habaartamay waanu duceeyey wuu habaaray cidda maamul ummad u haysa madax ha noqoto madax dhaqameed kuwa siyaasadeed kuwa diineed a'immo cidday doontaba ha noqoto waxaad ku weydo samo iyo dabacsanaanna xoog laguma helo nebigu wuxuu leeyahy rifqigu dabacsanidu shay ma lagula yimaado ilaa iyo zaanah wuu qurxiyaa shayna dabacsanida lagama saaro ilaa iyo shaanah wuu ceebeeyaa wuu xumeeyaa ciddii dabacsanaan la siiyey dheeftiisaa khayr laga siiyey ciddii dabacsanida weydayna khayr waa waayey buu nebigu yidhi xad buu nebigu ka gaadhay dabacsanida safar iyadoo lagu jiro ayaa nin dhallinyaroo saxaabiya oo cod macaana oo awr hoggaaminaya dumar saaran yihiin ayaa awrtu hees ugu dhuftay nin aad u cod macaanna uu ahaa xoolaha waxaa la yaqaannaa heesaha loo qaado way bartaan marka la carraabinayo mid baa loo qaadaa marka la hoggaaminayo mid baa loo qaadaa marka la waraabinayo mid baa loo qaadaa qof cod macaani hadduu gela u heeso isagoo hoggaanka u haya awrtu way dheeraysaa iyadoo dhegaysanaysa qofka kan saxaabi la yidhaahda anjasha oo aad u cod macaana ayaa hees ugu dhuftay awrtuu hoggaaminayey dabeetana awrtii baa dheeraysay oo xoog u dheeraysay dumarkii dusha ka saarraa baa markaa gilgilmay awrta saarraa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi irfuq ya anjasha wayxak bilqawaariir ruwaydak anjasha sawqaka bilqawaariir anjashow dumarka dhowr buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam quraaradaha jajabinin isagoo nebigu u tilmaamaya laa taksir ilqawaariir yacnii nebi maxamed wuxuu gaadhay xad naxariistiisu awrkaa la hoggaaminayo qofka saaran inaan la gelgelinuu rabo ee si fiican loo kaxeeyo waxaan ku soo koobayaa leeyahay qoys kasta oo dhisan hadday dhimrintiiyo naxariista isticmaalaan way jirayaan haddii islaantu ay kakanaato qaylo badnaato ama odaygu askari uu noqdo marka uu soo galo awaamirun bixiyo yararku derbiyada kala galaanoo qofba meel ku dhuunto sidii kornayl guriga soo galay hadday saa noqoto nebigu wuxuu leeyahy idaa araada allahu biahli beytin khayra adkhala calayhim alrifqa baa nebigu yidhi guri haddii ilaahay khayr la doono dabacsaniduu geliyaabaa ayuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam guri haddii khayr lala doono walidaalik baa gurigii nebiga nebiga wuxuu leeyahay caaisha ay waan aqaanaa markaad ii cadhaysantay bal hadda u fiirso waa caasho cadhootay oo guriga joogta laakiin maxay samaynaysaa calaamadduu nebigu ku garanaya inay cadhoonaysa ma inay timaa iska riftaaba mise waa inay qaylaysa mise waa inay buuqda maya nebigu wuxuu yidhi markaad cadhaysantay waan gartaa waxay ku tidhi ilaahay rasuulkiisiyo maxaad ku garanaysaa wuxuu nebigu ku yidhi markaad faraxsan tahayna waxaad tidhahdaa laa warabbu muxamed markaad cadhootana waxaad tidhaahdaa laa warabbu ibraahiim haddaadaanad cadhadu ku haynna arrinku sidaa maaha baad tidhahdaa nebi maxamed rabbigii baan ku dhaartaye laakiin markaad cadhaysantahay waxaad tidhaahdaa buu nebigu yidhi arrinku sidaa ma aha nebi ibraahim rabbigii baan ku dhaartaye dabeetana nebigu waxay ku tidhi ilaahay rasuulkiisiyo wax kale ma sameeya markaa cadhoodo dee magacaagu baan afka ka daayaabay leedahay nebi ibraahim baan soo qaadaa halkii aan adiga kaaga soo qaadi lahaa yacnii dadka cadhadoodii ku soo koobay inay dhaarteedun beddesho halkay warabbu moxamed ka lahayd ay tidhaahdo maxay warabbu ibraahim inay tidhaahdo waxaan leenahay markaa guri kasta oo ku dhisan caynkan aabba kasta
iyo hooyo kasta oo carruur haya macallin kasta iyo macallimad kastoo wax dhigta waxaan leenahay qofka aad rabto inaad rabbayso qalbigiisa fur intaanu caqliga furin haddaad istidhaahdaa awaamir iyo xoog tuko qasab saan yeel inta uu yaryey dayla waa la tumayaayo uu iska aqbali laakiin maalintuu dhowr iyo 10 jir gaadho inaga intaa qaylada buu ku odhanaya maalintuu dhowr iyo 10 gaadho tarbiyada xoog-xooggaahi ma socoto markaa meel ma gaadhayso laakiin haddaad qalbigiisa furto qofka kan oo ilmahan xanaan aad u muujiso waxaa laga yaabaa inaad aragto dhaqanka ilmo markuu tago kindergaardhankana faraxsan waayo islaanta kindergaardhanka joogtaa subaxii markaad u geyso intay u fadhiisataa bay mucaanaqaysaa ka yar intay jilbaha dhulka u dhigto marka yare adigu aad waday ayay mucaanaqaysaa hadhow markay kugu soo daraysana waa soo mucaanaqaysaa klem bay soo siisaa hadhowna adiguna adigoo gacanta hayoo jiidayaada war hore u soo soco leh ayaad dhigtaa waad ka dhaqaaqdaa hadhowna mee xagguu jiraa war soo bax gaadhiga fulo habsan baannu nahaye gaadhigaad kula carartaa idan markuu xaggeeda u sii socdana waa inuu faraxsanaadaa adiga xaggaaga markuu u soo socdana rabshad baa ku soo socotay waa inuu cadhaysnaadaa de iyadu qalbigiisay furtay saa daraaddeed macallimaddu waxay sheegtay kasta uu rumaysanyay run buu haystaa macallimaddii baa saa tidhu ku odhanaya waayo macallimaddu qalbigiisay furatay kadib caqligiisu waxbuu aqbalaya adiguna adigoo aan qalbiga furin baad waxaad rabtaa inaad caqliga uu kuu furmo suurtagalla maaha ilma haddaad rabto inaad rabbayso qalbigiisa fur dhunko soo dhowee eray fiican ku dheh ammaan markaasaa qalbigiisu kuu furmaya xataa hadduu qalad sameeyey qofku ma wada xuma qayb wanaagsan buu leeyahy wixii wanaagsanay uu sameeyey ku ammaan hooyo wiil fiican baad tahay saan baad samaysay kan baad samaysay waxan baad samaysay waxaasoo dhan baad samaysay aad baad u fiican tahay ammaantaa yari qalbigiisay furaysaa laakiin hooye waxaad ku dartaa inaad hoomwerigana ka shaqayso isagoo isu arkaya qof wax qabtay inuu yahay ayuu wuxuu isleeyay intan yare ka dhimanna islaanta aad ammaanteeda wada heshide inta yarna ku dar laakiin haddaad soo gasho adigoo leh maanta oo dhan shaqaad ku maqnayd ama markaad soo gasho waad leedahay yaa ka shaqaynin hoomwerigiisii waa dagaal arrinkaaga fadhfadhiistoo shaqeeya hoomweriga ka shaqeeya markaasay ku odhanaya aabba tv-gaanu yaro dhegaysanaynaaya war kac tv leyne orod ka shaqee in yar markuu gaadho uu kaa tegi idan waxaynu leenahay rifqigaynu sheegaynaa nebi maxamed wuxuu leeyahy dabacsani wax laguma daro ilaa iyo way qurxisaa qalqallafsanaan wax laguma daro ilaa iyo way fool xumaysaa sidaa awgeed ninkii ku yidhi 10 carruuraa dhalo weligay mid ma dhunkanin nebi maxamed wuxuu ku yidhi haddii qalbigaaga ilaahay naxariista ka siibay maxaan anigu kuu samaynaya waxaynu leenahay qof kasta oo dhallinyaro ah oo waalid leh ilaahay wuxuu ku yidhi waqfid lahumaa janaaxa dulli min alraxma waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira u dabacsanow waxaan leenahay qof kastoo daaciyo oo diin sheegaya fircoon baa la yidhi nebi muuse markaad u tagto waxaad ku tidhaahdaa qawlan layina war dabacsan warka dabacsani xaqa ha sheegin maaha fircoon muxuu ku yidhi nebi muuse markuu u tegey yaa idin rabbiya baa la yidhi rabbuna aladii acطaa kula shayin khalqahu uma hadaa buu yidhi laqad calimta maa anzala haaulaa'i ilaa xaqiiquu sheegayay nebi muuse kama gabbannin xaqiiqada laakiin isagoo qowlalada ka xumbaynaya ma sheegin oo dagaalansan ee wuxuu sheegay isagoo raba qofkan inuu xaqa aqbalo idan ma aha macnuhu markayn leenahay rifqi noqo diinta ka tag maaha xaqa ha sheegin maaha ilmaha ha sixin maaha khata'a ha joojinin maaha waxaasoo dhan sidoodaa loo saxaya laakiin qaabka loo saxayo qaabka weedha loo odhanayo ayaa waxay noqonayaan qaab fudud waayo nebi maxamed baa ilaahay wuxuu ku leeyahy haddaad qallafsanaan lahayd oo aad qalbi adkaan lahayd dadku waa kaa yaaci lahaa hadda ma aha nebi maxamed miyaanu xaq sheegaynin may xaq buu sheegayey waxyi baanu waday kuwuu wax u sheegayay aayaddani ku soo degtayna waa goob dagaal bay ka carareen qaar ka midii qaarna way iska fadhfadhiisteen qaarna ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay adduunyo doon ahaayeen minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira saxaabay wada ahaayeen laakiin markan gef bay galeen qaybo badanoo ka midii saxaabadii uxud ka carartay qaar baa firdhadkii madiine ku galay gef baa dhacay atawalli yowma zaxaf baa dhacay
waxaasoo mashaakil oo dhacay ayaa ilaahay wuxuu ku leeyahay haddana naxariista xagga alle ka timi ee qalbigaaga gashay baad ugu dabacsanaatay dadka ee haddaad adagtaan lahayd dadku wuu kaa tegi lahaa kuwaas baa ilaahay wuxuu ku leeyahay facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr kuwaa dembigooda dhaaf oo ilaahay dembi dhaaf u weydii arrinta iyo taladana wax ka sii baa ilaahay leeyahy maalin bay gafeenoo dib loola hadli maayo nimankaas ay iska tagaan ma jirto maalin way gafeen laakiin waa laga toobad keenaa gafka saa awgeed warka aan rabaa wuxuu yahay marka xaqa waynu sheegaynaa ilaahay kitaabkiisana la qarin maayo sunnada nebigana waa la sheegayaa madaxdaa loo sheegayaa maamulladaa loo sheegayaa a'immadaa loo sheegayaa caamadaa loo sheegayaa cid walbaa loo sheegayaa laakiin usluub buu xaqu u baahan iyo dhimurin walidaalik nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa dhimurintu in khayr dhammaantii uu ku jiro soomaalidu nacasnimay u haysataa socaynkaa maaha adayg iyo qallafsanida baynu ragannimo u naqaannaa marka reerkiinna la soo qaado inaad qowlalada ka xumbayso oo had wax radidid marka meel la ysugu yimaado inaad hadalka dadka ku gubtid xataa haddaad rabto inaad wax sheegto hadal wada mudmudis aad uga dan leeday kaasi hadalkii u yidhina jawaabta ka yara bixiyo ku mud kanna ku mud dee haddaad warma qaybinayso dad wadi kari maysid asalku wuxuu yahay xaqa inaad sheegto laakiin usluub latifan oo fiican inaad u sheegto dadka aad tarbiyaynayso ha weynaadaan ha yaraadaan dadka aad koobcinaysa rabbaynayso inaad isku daydo inaad quluubtooda haratid markaasaad caqligooda helaysaa qofkii aanad qalbigiisa helin ee cawaatiftiisa aanay gacantaada soo geli karin cuquushooduna gacantaada ma soo gelayso siiba marka la joogo qadaaya tarbiya siiba marka la joogo carruurta iyo barbaarinteeda waa inaynu rafqinimo kula dhaqannaa rafqi inaynu kula dhaqannaana macnaheedu ma aha inaynu xadhigga u sii dayno waxay doonaan ay sameeyaan waa saxaynaa laakiin waxaynu saxaynaa iyadoo aynu qalbigooda hanannay iyadoo aynu kalgacal u muujinnay iyadoo aynu u muujinnay inaynu danaynayno qofka kan sidaa awgeed wakhtigaas ka kooban oo wakhtigii laysiiyey waxaan filayaa 2-3 daqiiqa ka hadhay waxaan idiin sheegayna waa nakhtiin waa axaadiistii iyo aayaadkii culammadu idinku akhriday wax cusub idiinma sheegin laakiin midha aan rabo un inaan idiin sheegaa waxa weeyaan cuquushu ma furanto haddii aanay qalbiyadu furmin cuquushu ma furanto qofkaad qalbigiisa furi karto ayuunbaad caqligiisana furi kartaa qofkaasaad qancin kartaa qofkaasaad wax u sheegi kartaa qofkaasaad waxaad u sheegtay u arkayaa inaad u naseexaysay oo u danaysay oo isaga tiisa aad ka warramaysay hadday taasi suurtoobi weydo tarbiyadaadu waa faashil hoggaamintaaduna waa faashil siyaasiyiinta waddannadii muslimiinta ka jira mashkiladoo dhan waxay isku dayaan inay ku xallilaan alamnu uma alamnu uma alamnu uma alamn booliis iyo qaanuun iyo askari in lagu xallilo taasina waxba ma samayso way sii adkaysaa dadku way sii cabburhaan marunbay sida bambaanaa qarxaan markay qarxaanna wixii soomaaliya ka dhaco kalunbaa dhaca marka waxaan ku soo koobayaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qof dabacsan buu ahaa isagoo xaq wadana xaqii wuxuu u gudbiyey qaab dabacsan وصلى اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين